Dun, 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 dun. Welcome back to BBC Minnesota. We are back today one more time with Sir Yaqub here. Yaqub, you're eating what looks like to me a goat kidney. Sir, you ever had goat kidney before your lady wife Somali? No, never. wuxuu yiri waligay kaliya ma aanan cunin waxa iga maqnaa dhadhankii adduunka oo dhan ayada ay soo kordhisay kaliya ay sameysay macaankooda iyo khudradda iyo adduunka isku dhex samayso iska daay hadii xataa hal mar walaaqdo macaankeeda dhagta danbaa laga dhadhaminayaa. Okay sir, you know Somalis we say kidneys nutrition very good in Somali. What do you believe about that? It's probably true. wuxuu yiri waan ogahay inay yihiin nafaqo maxaa yeelay xaaskaygu way samaysaa ilmahayga bay u samaysaa gurigo dhan way nafaqaysaa saasaan ku ogaaday marka inay nafaqo yihiin aad iyo aad baan nafaqo uga helay intaan la joogay xaaskayga. Sir Yaqub, are you happy with your food, your wife, everything your life? It's good. wuxuu yiri noloshayda aad baan ugu faraxsanahay xaas kale iyo waxaasay toolay ma maqashin karo caruur fiican wanaagsan bay ii dhashay waa xila janno waa qofka adduunka ugu wanaagsan mid iyadoo kale ama jirto marka aad iyo aad baan u faraxsanahay noloshayda aad iyo aad baan ugu qanacsanahay meesha ay maanta taagan tahay. warkani wuxuu ahaa BBC Minnesota oo inta inoogu ekaa with Yaqub. Ciao sir.